warburtiyeed 18 bisha December ee sanadka 2018 annagoo ah murashaxiinta Puntland 2019 ee hoos ku saxiixan waxaan walaac xooggan ka muujinaynaa habka xukuumadda xilkeedu dhammaaday ay u maamulayso doorashada bisha January 8 sanadka 2019 amniga caasimadda xilliga doorashada iyo la dhaqanka isimada xaqa u leh in ay soo xulaan xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka Puntland sidaas darteed waxaan isla waafaqnay qodobadan hoos ku qoran kow in doorashada Puntland cidna aysan wax faragelina ku samayn ee loo daayo reer Puntland in ay si xor ah hogaankooda u doortaan laba in ay Puntland ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo keenta isbedel mug leh oo natiijada ka soo baxda lagu wada qanco maamulka waqtigiisii dhammaadayna uusan doorashada marin habaabin qodobka saddexaad in amniga caasimadda xilliga doorashada loo daayo ciidanka daraawiishta iyo booliska Puntland waxaa soo wada saaray si wada jir ah warmurtiyeedkan murashaxiinta hoos ku qoran kow Maxamed Axmed Jaamac laba Faarax Cali Jaamac saddex Bashiir Maxamed Xuseen number 4 Cali Xaaji Warsame shan Maxamuud Khaliif Xasan lix Maxamed Ismaan Alimaad toddoba Cabdi Faarax Juxa sideed Khaliif Ciise Mudan sagaal Maxamed Cabdullaahi Xuseen Shortaaye toban Cabdi Weli Cabdiraxmaan Geyre koob iyo toban Aadan Maxamed Ciise Gaadaale labiyo toban Cabdirisaaq Jaamac Janna Gale aad iyo aad baad u mahadsantihiin mana jiraan wax su'aala oo aanu ka jawaabayno